daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idiin hayso waxaa u daroon Jubbaland oo cadaadis xoogan saaraysa musharaxiinta la tartamaysa Axmed Madoobe. Madaxweyne Farmaajo ayaa cadaadis xoogan saaraya shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Odayaasha Kismaayo oo shaaca ka qaaday inay isaga baxayaan Jubbaland. Xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Galmudug oo cirka isku shareeraysa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ilaamisay doorasho iyo shir ay dadka Galmudug u qabanayso. Kenya oo qorshe cajiib ah u degaysa sidii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u joojin lahayd cadaawadda dhanka badda. Isbeddel lagu sameeyay fil Soomaaliya iyo awoodda agaasiminkii hore ee hoos loo dhigay oo shaqada ka celisay 5 xubnood oo ay sheegtay inaysan u qalmin hay'adda iyo sarkaal ka tirsan Jubbaland oo Kismaayo lagu dilay baaritaan socda. Wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka idinaysa waxaa ka mid ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo la ogaaday inay ka shaqeeyaan danaha Yahuudda. Daawadayaal intaasi waxa ay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka ugu darkoon. Haddii aad ku cusub tahay fadlan rukumo channelkan oo subscribe dheh ama guji gambaleelka si wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka uu ku soo gaaro. Mar kale kulan wacan daawadayaal aanu ku bilowno. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis xoog leh saaray shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya waxaana soo baxay warar dheeraad ah oo ku saabsan kulamo dhex maray wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maarey iyo madaxweyne Farmaajo. Kulankan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii la magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maarey. Waxaana soo baxay kulankaas waxa uu ku saabsanaa sababta Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka iyo wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona aysan tayo ugu dhameen warbaahinta kale ee madaxa bannaan. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiir Maarey ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay tahay wasaaradda ugu shaqaalaha badan isla markaana ay joogaan dadka kaliya ee ku cabiran ama wax ka gala shaqadooda, laakiin ay tahay wasaaraddu tan ugu liidata marka loo eego wasaaradaha kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiirka warfaafinta waxa uu soo hadal qaatay hadal uu hore ugu yiri Engineer Yariso markii uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya kaas oo ahaa in sanadkii 1 milyan ka badan ay iga gasho wasaaradda teena kuma dhama warbaahinta madaxa bannaan sababta la sheego ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in wasaaradda ay joogaan wariyaal tayo leh oo qaata mushaar ku filan bil kasta laakiin aysan shaqo qaban isaga oo dalbaday in la soo gudbiyo wariyaasha shaqeeya iyo kuwa maqan. Radio Kulmiye, Goobjoog, Universal iyo TV kuma dhama Radio Muqdisho iyo SNTV lacagta aan bixiyana ma laga bixiyo kuwaas. wasiir maxaa qaldan ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warbaahinta online-ka ah ayuu tusaale u soo qaatay isagoo akhristayaasha sheegay inaysan ku dhameen Sona oo ah wakaaladii qaranka waxaas looma dulqaadan karo ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay wasiirka warfaafinta Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in markii la gaaro 2020 ay dowladda Soomaaliya doonayso fariimaha wacyigelinta doorashada iyo dhammaan barnaamijyada kale ee quseeya isbeddelka cusub ay doonayaan inay marsiyaan warbaahinta qaranka isla markaana aysan doonayn inay u baahdaan warbaahinta madaxa bannaan. Dhinaca kalena isbeddel ayaa la tilmaamayaa in lagu sameeyay filla Soomaaliya waxaana la magacaabay sida wararka lagu helayo agaasimka ku-xigeen iyadoo dhinaca kalena hoos loo dhigay agaasimka ku-xigeenkii hore ee filla Soomaaliya awoodiisa. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu magacaabay madaxweyne Cabdullaahi Sheekh Cabdikariim Yuusuf inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. Wareegtada ayaa waxaa eebe looga baryay inuu u fududeeyo waajibka shaqo ee looga igmaday mana jirin faahfaahin dheer oo laga bixiyay magacaabista cusub ee uu sameeyay madaxweyne Farmaajo, balse shabakadda isha wararka ayaa ogaatay xog faahfaahsan oo ku saabsan sababta keentay in magacaabista Cabdullaahi iyo xilka qaadista dhinaca awoodda ee lagu sameeyay agaasimka ku-xigeenkii guud ee madaxtooyada Cabdirasaaq Caato. Cabdullaahi Sheekh Cabdikariim oo ah nin ka soo jeeda beesha Biimaal ayaa markii hore ku magacaabnaa madaxa howlaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya waxaana dhowaan xilka qaadis ku sameeyay agaasimka ku-xigeenkii guud ee madaxtooyada Cabdirasaaq Caato. waxaa arintaas ka warhelay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku abaalmariyay in loo dalacsiiyo
waxaana sidaas looga dhigay agaasimo ku-xigeenka guud ee madaxtooyada. villa Soomaaliya ayaa hadda yeelatay 2 agaasimo ku-xigeen oo midkood uu awood dheeraha leeyahay, halka midka kalena uu muuqdo inuu yahay mid aan go'aamo lahayn. Cabdulaahi ayaa wuxuu hadda kadib la wareegi doonaa maamulka iyo maaliyadda villa Soomaaliya, wuxuuna noqonayaa agaasimo ku-xigeenkii ugu awoodda badnaa aqalka dalka looga taliyo. Sidoo kale, agaasimaha madaxtooyada Fursade ayaa shaqadiisa u badnaan doonta maamulka siyaasadda iyo amniga, waxaana muuqata in shaqada Cabdirasaaq Caato ay noqotay mid maqaar saar ah maadaama laga buuxiyey dhammaan awoodihii uu lahaa. Cabdirasaaq Caato oo ay qaraabo yihiin madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer oo hore lagu eedeeyey inuu ku takrifalay awooddii maamulka iyo maaliyadda madaxtooyada, waxaana bilooyinkii dambe mushaar la'aan ahaa inta badan shaqaalaha villa Soomaaliya, waxaana la rumaysan yahay inuu jiro musuqmaasuq dhanka maaliyadda, waana sababta ugu weyn ee loo dhimay awooddiisa. Xafiiska Hanti Dhowrka Qaranka ayaa lagu wadaa inuu baaritaan ku sameeyo sida uu Caato u maamulay dhaqaalaha madaxtooyada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilihii ugu dambeeyey waday isbeddel uu ku sameeyey maamulka madaxtooyada Soomaaliya kadib markii ay madaxtooyada xiriirsay musuq, waxaana horey loo bedelay agaasimihii madaxtooyada Aamine Saciid iyo agaasimihii batroolka oo haatan ku sugan dalka Maleeshiya. weli daawadayaal waxaad daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan rukumo oo subscribe dheh oo guji gambaleelka si wararkii u dambeeyey ee caalamka iyo Soomaaliyaba aad u heshid marka aanu soo gelino barteena YouTube-ka. Xiisadda u dhaxaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa cirka isku shareeraysa. Dhinaca kalena, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ilaamisay doorasho iyo shir dadka Galmudug ay qabanayso. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhowaan la qaban doono kulan dib u heshiisiin ah oo la isugu keenayo beelaha dega Galmudug, isla markaana laga tashan doono qaabka loo wajahayo doorashada cusub. Wasaaradda ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixgeliyo xilli waqtiyeedka madaxda Galmudug 4 bisha 7 sanadka 2019, loona diyaargaroobo doorasho cusub oo la doonayo inay noqoto mid xalaal ah. War-saxaafadeedka oo nuqul ka mid ah ay heshay shabakadda isha wararka ayaa u qornaa sidan: war-saxaafadeed ku saabsan doorashooyinka Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo gudinaysa waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda Galmudug, waxa ay ugu baaqaysaa madaxda dowlad goboleedka Galmudug in doorashooyinkaas lagu qabto muddadii loo asteeyay si loo xaqiijiyo hanaanka doorasho oofan kana turjumaysa dimuqraadiyadda iyo tartanka furan ee ay ku tilmaamtay Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, iyada oo garowsan muhiimadda uu leeyahay wada tashiga iyo midnimada bulshada deegaanada Galmudug, waxa ay ku baaqaysaa shir dib u heshiisiineed oo ay isugu yimaadaan dhammaan waxgaradkii hoggaanka dhaqanka Galmudug oo lagu xaliyo arrimaha dowlad goboleedka Galmudug, laguna magacaabo guddi farsamo oo daadiya qabanqaabada shirkaas. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta oo ay tixgelinayso muddada xilhaynta dastuuriga ah ee madaxda Galmudug oo ku eg 4 Luulyo sanadka 2019, waxa ay soo jeedinaysaa in si degdeg ah looga wada shaqeeyo dhamaystirka hanaanka dimuqraadiyadeed ee doorashada iyo inay ka qabsoonto nabad iyo hufnaan. Ugu dambeyntii, waxaa bogaadin mudan dadaalada wadajirka ah ee bulshada iyo waxgaradka Galmudug ay ku bixinayaan horumarka iyo xaqiijinta himilooyinkooda ku aadan Galmudug horumarsan oo uu ku jiro nidaamka hanaan qaad ah dhammaad, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaas oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaqada ka ceerisay sida ay sheegtay 5 xubnood oo hay-addaas ka tirsanaa. War ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu faahfaahiyey xubno ka tirsanaa hay-adda oo shaqo joojin lagu sameeyey. 5 xubnood oo aan la sheegin darajadooda iyo magacyadooda ayaa warka lagu sheegay in shaqo gudasho la'aan looga saaray NISA. Qoraal nabad sugidda ay soo saartay ayaa lagu daray in aan lagu aamini karin 5 ruux howlaha qaranka ee xasaasiga ah. Bogga Twitter-ka ee NISA ayaa lagu daabacay warkan: hay-adda NISA muddo ku dhow sanad ma lahayn taliye, waxaana tan iyo markii is-casilay taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen
oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaysa doorashadii koonfur galbeed Soomaaliya xilka sii hayay ku-xigeenkiisa. Jubbaland ayaa cadaadis xoogan saaraysa musharaxiinta la tartamaysa Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Maamulka Jubbaland ayaa digniin ka soo saaray xaaladaha dhanka ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee maamulka Jubbaland. Jubbaland ayaa digniin u dirtay musharaxiinta ku sugan Kismaayo iyo kuwa doonaya inay tagaan magaaladaas, waxaana looga digay inay sameeyaan falal amniga qalqal gelin kara. Wasiirka amniga ee Jubbaland Rashid Xasan Cabdinuur saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa ka digay in musharaxiinta ay dacaayadayaan ciidamada ammaanka ee xaqiijinaya amniga doorashooyinka Jubbaland. Wasiirka ayaa sheegay in maamulka Jubbaland marnaba uusan aqbalayn in la carqaladiyo ammaanka magaalada Kismaayo, isla markaana musharaxiinta ay aflagaadeeyeen ciidamada Jubbaland. Isaga oo sii hadlaya waxa uu yidhi wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Nuur in qof walba uu musharax noqon karo musharax u tartama madaxtinimada iyo xildhibaanimada Jubbaland, si aan laga aqbalayn inay wax qaldan madaxtinimo ku raadiyaan. Digniintan ka soo baxday wasaaradda amniga Jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee eedeyn iyo dhaliilo ay u jeedinayeen madaxda dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa muuqata in weli dadka ka qaybgalaya doorashada ka dhacaysa deegaanada Jubbaland aysan ku qanacsanayn musharaxiinta kala duwan, waxaana sidoo soo korortay amni darro ka jirtay Kismaayo iyadoo 48 saac lasoo dhaafay ay dilal ka dhaceen Kismaayo. Dhinaca kalena, Kismaayo wararka aanu ka helayno ayaa sheegaya in odayaasha ku dhaqan Jubbaland ay shaacinayaan inay isaga baxayaan deegaanada maamulka Jubbaland. Waxaa isa soo taraya shawaaca ku saabsan xaaladda amni ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii ay kordheen dilalka dadka ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland ee la dilayo. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay inay soo wajahday xaalad degdeg ah oo dhanka ammaanka ah, isla markaana aysan ku sugnaan karin Kismaayo ilaa ay ka imaanayso xaaladda ay dadka ku cabiraan aragtidooda, isla markaana la helo xorriyadda hadalka iyo aragti dhiibashada doorashada. Laba ka mid ah waxgaradka Kismaayo oo aan qarinay magacyadooda sababo amni ayaa inoo xaqiijiyay in ay ka fikirayaan sidii Kismaayo uga soo bixi lahaayeen maalmaha soo socda. Sidoo kale, odayaashan ayaa inoo sheegay inaysan sahlaneyn bixitaanka odayaasha oo ay Jubbaland aaminsan tahay inay Muqdisho gacan hatinayso dowladda federaalk ee Soomaaliya, balse ay sameyn doonaan wax kasta oo ay kaga soo bixi karaan Kismaayo. Kismaayo waxaa soo buuxiyay dhalinyaro bastoolado wata oo dhar cad ah oo dadka tooganaya, ayuu yidhi mid ka mid ah waxgaradka Jubbaland. Ima muuqata sabab iyo xaalad aan u sii joogno Kismaayo, waxaan rabnaa aan la baxsano nafteena, ayuu yidhi mid ka mid ah odayaasha aan la hadalnay oo doonaya inuu dhowaan isaga soo cararo Kismaayo. Maalmihii lasoo dhaafay, Kismaayo waxaa ka taagnaa xaalad cabsi iyo dilal ay fulinayeen kooxo bastoolado ku hubeysan, kuwaas oo ilaa hadda aan lagu guuleysan in la soo qabto. Sidoo kale, Kismaayo waxaa ka taagan kala aragti duwanaansho xoog leh oo ku saabsan qaabka xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland, taas oo keentay inay dareen ku beerto dadka isbeddelka doonaya. Wararkii Kismaayo ayaan daawadayaal ku guda jirnaaye. Sargaal ka tirsan Jubbaland ayaa la sheegayaa in lagu dilay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Kismaayo maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ay fulinayaan rag bastoolado ku hubeysan, taas oo keentay in cadaadis xooggan ay dareemaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan Kismaayo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil loo geystay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Jubbaland. Sargaalka ayaa lagu dilay bartamaha magaalada, gaar ahaan xilli uu ku sugnaa goob gaadiidka lagu baaro oo ku taalla bartamaha magaalada. Waxaan la ogeyn cidda dilkaas ka dambeysay. Dilka kadib waxaa la sheegay koox bastoolad ku hubeysan oo falkaas ka dambeeyay ay ka baxseen halka uu dilku ka dhacay, waxaana aad loola yaabay qaabka dadka dilka u geystay ay u baxsadeen. Ciidamada ammaanka ayaa baaritaano ka wada xaafadaha kala duwan ee Kismaayo, waxaana baaritaanka si gaar ah looga sameynayaa goobta uu falka dilka ah ka dhacay. Habeen hore ayay ahayd markii koox hubeysan ay dil ka geysteen magaalada Kismaayo, iyagoo dilay nabadoon si weyn looga yaqiinay maamulka Jubbaland, isla markaana dhaliili jiray siyaasadda madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Lama oga ilaa hadda sababta ka dambeysa amni darrada ku soo kordhay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, xilli dhowaan la filayay inay doorasho ka dhacdo magaaladaasi. Ciidamada ayaa ilaa hadda wada baaritaano kala duwan, mana jirto cidda loo soo qabtay inay falkaasi ka dambeeyaan. Kenya ayaa qorshe cajiib ah u degaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku aadan dacwadda dhinaca badda. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waramayaa in ay ajandayaasha kulamadooda soo socda ay ka qayb yihiin muranka dowladda Kenya ay gelisay badda Soomaaliya. Kenya ayaa lagu waramayaa
inay markaan dadaal badan u gashay sidii kiiska kala dhexeeya dowladda Soomaaliya ay geyso golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kenya ayaa ku andacoonaysa in haddii dowladda federaalka ee Soomaaliya ku guuleysato dacwadda dhanka badda inay saameyn ku yeelan doonto dalalka ku yaala bariga iyo koonfurta Afrika. Sida ay sheegtay, Kenya ayaa shaacisay inay ku faraxsan yihiin qaramada midoobay inay soo fargeliso dacwadda u dhexeysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Waxa ay sheegtay Monica in haddii ICJ ay Soomaaliya u xukunto biyaha hadda ay Kenya dooda gelinayso in ay isqabsan doonaan Kenya iyo Tanzania iyo Mozambique iyo Koonfur Afrika. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aan rasmi ahayn kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku soo hadal qaaday muran badeedka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana goluhu ku darsadeen ajandayaasha ay ka doodayaan. Golaha ammaanka ayaa hadda ajandayaashooda ku darsaday kiiska dacwadda dhanka badda, waxaana la ogeyn waxyaabaha ay ka soo saari doonaan haddii ay ka hadlaan kiiska labada dowladood. Halka warkaas daawadayaal oo xilligan idinkaga imaanayo waa warbaahinta Isha Wararka. Dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la ogaaday in ay taageero xad dhaaf ah siiyaan Yuhuudda. Asaasaha Macadka Daraasaadka Yuhuudda Meg Evans ayaa sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Saciid ay Israa'iil caawiyaan in ka badan inta Yuhuudda ay caawiso. Evans oo ka hadlay shir ay soo qaabisay The Jerusalem Post oo maalintii Axadda ahaa ka dhacay New York, ayaa sheegay inuu labadan mas'uul la kulmay oo uu ku tilmaamay inay yihiin laba ka shaqeeya danaha Israa'iil. Asaasaha Macadka Daraasaadka Yuhuudda ayaa sheegay inuu Maxamed bin Salmaan la kulmay markii uu dhacay dilkii Jamaal Khashoggi, wuxuuna sheegay inuusan qiran dilka wariyahaas, sidoo kalena uusan inkirin, balse waxa uu tilmaamay inuu sheegay in xitaa uu amiirka qalad geli karo. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa halkaas ka sheegay in Israa'iil iyo Mareykanka ay iska kaashanayaan sidii xiriir wanaagsan oo la yeelan lahaa dowladaha Carabta, oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo ku shaqeeya waxa lagu shubto, sida uu isaga hadalka u dhigay. Bishii Febraayo ayay ahayd markii TV-ga 13 ee uu sii daayay qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka Xaqiiqooyin oo loogu magac daray Sirta Khaliijka, kaas oo lagu sheegay inuu aad u soo wanaagsanaaday xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga ka dhexeeya tan iyo markii uu awoodda la wareegay Maxamed bin Salmaan. Waxaa lagu sheegay barnaamijkaas in xiriirka Sacuudiga iyo Israa'iil uu xaalad adag galay kadib dhimashadii boqor Cabdullaahi bin Cabdilcasiis, markaas oo xilka la wareegay boqor Salmaan. Warkii xilligan daawadayaal idinkaga imaanayay warbaahinta Isha Wararka waa naga intaa. warka xiga inta dib u kulmi doona qiyaasana daawanaysa sidaas nabadgelyo.